رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaan maanta jecelahay inaan dadka xasuusiyo hore waxa la inoo yiri ilowsho dhawaa maamulba wixii xasuuq ka dhacay dalkan raadkiisa qoyana ayaan iska ilowna waa ogtiino maalin uu xal xusiyay Yurub ay xusisay France lagu xusiyay dadkii ka dhintay lagu xasuuqay dagaalkii koowaad ee adduunka maanta waxa weeye 27 July waa maalintii dadka gasiiro lagu xasuuqay ee isirahaanta inta guriga laga soo baxay reer ahaan loo dilay waa soddon guuradii weey waa jiraan xasuuq badan oo ka dhacay Hargeysa Ceergaawo meel kasta ka dhacay laakiin kan taariikhdiisa ayaa maalintan waxa ahayd 17 waxay ku soo beegantay soo maanta markabkii xoolaha ee ka baxay Berbera oo ilaa hadda xadnimo yahay waxay isweydiin leh iyo xasuuqa ka madaxa yaa fuliyay waxa fuliyay Maxamed Saad Bare maanta xoolaha Soomaaliland hal xadnimo yaa yiri waxa weeye farmaajo waxa weeye history repeats itself waxa weeye adeerkii waa Maxamed Saad Bare سموك ما أنت حبيت يسوي نلك سوي قارو هاي معيشتي أيوه إنك لا تقالمية وهذا شرط تيجي لها ممكن مدحوني سودقي وردتك كلا صار وحليه دون سوماليه كلا صار حسن الشيخ باها مدحويني شيخ حسن باها شيخ شريف باها وليجيني يا الهين معيشة سومال الهند لقى ما تقالمية ما عنده حوي وحتى سنة توسسها إن سيجارة وفرماشيو كوريدا وماشي كو هايستا إن الله دعالمها وحلا يابلا لكن نك وزير كأله يروح الدنيا إنه نافق حوالها بقى وبقول أو كقاطه $1 وهذا صدح مليون حوالها حبان $1 مليون بس واحد سنة طبعا كنت أسأل ماشي فديا inay yihiin dad xaalufinaya oo doonaya ummadda lacagteeda ursadaan badii bay iibiyeen oo ogtihiin Norwegian iyo laga iibiyay shisheeye waa ogtihiin ciidamo shisheeye keeneen marka waxa weeye group u soo talagalay inay Soomaali haddana dagaal sokeeyo geliyaan iyo isla aarsada xaalufiyaan dhaqaale urursanaya لكن واحد سويدين له إنه ينمي حوالين بنا جبوت ومريا قيلين باكو تشبيا بورة جبوت أرجعيني باك جبوت ودكتين ما عن حوالك كله فكريين ما واحد تاسين توصل إلى هندت شربع إن ما أنت لين هويستو إلى حوالين لوي مادو ما عليها هاي الشعب الرئيسي ومالنا هل كان كبوب بلامي هاي سديغانينا خلاف دحين جوجيا حدينا بربرنا ما جري غير كلي نقول يقب قدينا waxaan walaal wada adoonsanaya waxa la soo celinaya saacadii 1988 kii farmaajo soo celinaya waxa leenahay dadkan waxa jaala ahayn ee USC ee dhibaatada idinka keenay marka midida u dhiibteen ragii shalayto dadka ka xoreyseen ciyaalkoodii waliba ciyaalkoodii aga qoraysan waxa leenahay dawladeena iyo shacabka Soomaaliyeed waxaynu shilin haysano wayna xoog isku geena ciidamadeena dhisnaa wayna ciidamada dhisaa hadaynu baqtiino xitaa wayna cudud samaysanaa saana mar dambe never again bay lahaan yuhuudu inaan genocide xasuuq dambe nagu dhicin in mar dambe dhulkeena la sheegan waxa leenahay kuwa dibadda ka soo qaylinaya واتساب كذا قبيلة كجاه ليها وون فاميلي بانه ون فاميلي هو ون فاميلي ماله هلا تشوتشيو على هاي مامك محمود سلامة انتوا يسكو كان درو ينوك اللي تجي ولا حبت أنا ندوس سوريين ويسكو كان دري تدخل قبيلة هان كوبر الحوسنة أيام وحينين أن كورر دون نين أن كود تشين دون يانو كورر دب بين قليني يعني نيمان
taariikhda soomaalida ee taraadhiishka reer miyiga ahayd waran lagu ogaa ma ahayn naaba haysan politicians baa laakiin khiyaamada khariif bay ku hayn laakiin dagaal marka waxaan leenahay dadka tolaaye leh ee tolaaye ku kaxaysanayaan tolaaye inaga isku tola dadka isku deegaana isku dhaqana isku taariikh ay was dhalay ayaa bal u yeedho intay dhaleen iyo inta reer Soomaaliya isku eeg waxaan leenahay qolada banaadir aan ka xumay in 150 milyan ee laga qaado Muqdisho 50 milyan waxa qaata dad aan u dhalan oo madax iska dhigaya ayaa mushaar u qaata inta kale diyaarada lagu raaca meel kale cashuura ma jirto Muqdisho la cashuura ila lagu dilaa ila lagu dhoofaa ila lagu soo shaqoola lacagtiina ha bixinina nin aan wadkiisi aanu awood ku lahayn iyo magaaladiina awood ku yeelan gilgisha maxamed saad baraka gilgalateen afar inay kuriyo inay ka gilgalataa ma leh saasan leh dadkeena ha kaceen dhalinyaro kaca nacaska xun inta lacag yar siiyo wajsab ka soo aytamay Soomaaliya ka qabaabay iska celiya maanta waxa weeye waa maalin murugale waa maalin murugale 30 sano ka bacdi السلام عليكم ورحمه الله وبركاته bixin arinta waan runta doonaa ka hadalno caawa insha Allah taala dadka deegaanka deganaa horaan ugu sheegay waxaan wareer garowe daddoon ma waa duldoon waanu sheegayna kuwa magaalada sanaagta baray waa dadkaasi ma dal daddoon oo reer dooniya waa duldoon way soo 20 kilomitir bay soo galeen dhulkan yaa arintaas waxa weeye wax xilib saaray markii horeysa dadka deegaanka leh in dalku dhulkooda daafaca dawladdu gacan siisa arintaas waa laga gigishaa weeye meel kasta waa naga soo galay meel kasta waa la shakhsado waxay yiraahdeen wax jira ma habaalay laakiin waa tan sheego dabar la cuna leh shaf la cuna malihin haddii soo jeesano haddii soo taariikhda dib u raaca wiligan guulayna gameelin dagaal laano inuu dadka ma doondoono dadka ma xumeeno quudkayna siina wiliba kii ku diliyaan oo Suuriyeena ya marka waxaan leenahay Soomaaliya ha toosto dawladuna ha shaqeyso madaxweynaha uu maqan yahay xoolo baa taagan wasiirkeena xoolo uu maqan yahay waa wasiirkii xoolaha iyo badda laba wasaarado waaweyn ee la isku riday ande aan function ma shaqeynaya waxa sababka waa in la dadku shaqeyso wala dagaalamaya wala tartamaya ma waxa ka sugayay inuu farmaasho faataxin oo akhriyo ma ku soo baxay وانا dagaalamaya waa awoogii baad ka riday ninkii kooriska u diray kii waxba aqoonay kii inaan kufsaday kii laga sii daayo wala Mareykanka loo diray mamlakadii baad ka dumisay marka mabduu soo celinaya hada maxaad uga cabanaysaa dala tartan wala ficilta hada dawladda wala ku soo doorto wadanka institution shaqeynaya abaadka iska daaya wala tartamaya السلام عليكم bixin arinta waan runta doonaa ka hadalno caawa insha Allah taala dadka deegaanka deganaa horaan ugu sheegay waxaan wareer garowe daddoon ma waa duldoon waanu sheegayna kuwa magaalada sanaagta baray waa dadkaasi ma dal daddoon oo reer dooniya waa duldoon way soo 20 kilomitir bay soo galeen dhulkan yaa arintaas waxa weeye wax xilib saaray markii horeysa dadka deegaanka leh in dalku dhulkooda daafaca dawladdu gacan siisa arintaas waa laga gigishaa weeye meel kasta waa naga soo galay meel kasta waa la shakhsado waxay yiraahdeen wax jira ma habaalay laakiin waa tan sheego dabar la cuna leh shaf la cuna malihin haddii soo jeesano haddii soo taariikhda dib u raaca wiligan guulayna gameelin dagaal laano inuu dadka ma doondoono dadka ma xumeeno quudkayna siina wiliba kii ku diliyaan oo Suuriyeena ya marka waxaan leenahay Soomaaliya ha toosto dawladuna ha shaqeyso madaxweynaha uu maqan yahay xoolo baa taagan wasiirkeena xoolo uu maqan yahay waa wasiirkii xoolaha iyo badda laba wasaarado waaweyn ee la isku riday ande aan function ma shaqeynaya waxa sababka waa in la dadku shaqeyso wala dagaalamaya wala tartamaya ma waxa ka sugayay inuu farmaasho faataxin oo akhriyo ma ku soo baxay وانا dagaalamaya waa awoogii baad ka riday ninkii kooriska u diray kii waxba aqoonay kii inaan kufsaday kii laga sii daayo wala Mareykanka loo diray mamlakadii baad ka dumisay marka mabduu soo celinaya hada maxaad uga cabanaysaa dala tartan
والله فعلت هذا الدولة هو لو صوت دورته ودك انستيوشن شغالين يعني عبادك اسكت داية على ترتمي يعني السلام عليكم.